بسم الله الرحمن الرحيم. وما سنتين إن الله وإنا إليه راجعون. وحا قرح ومانتا كداعي حرمتي قبلك dad badan oo runtii mas'uuliyiinta gobolka kamid ah wax ku noqday weli waxaan ku dhaawacyo iyo dadkii sidii wax u gaareen saacadooda gudoomiyaha gobolka waa dhaawac wuxuu ku jiraa hadda saaladii qaliinka lagu jiraa dhowr gudoomiye degmana wax ku noqdeen qaraxu meesha uu ka dhacayna waa xarunta gobolka howlkii shirarka oo shirkii tubta maanta maalin arbacay ahayd dhammaan gudoomiyaashii degmooyinka iyo agaasimayaashii gobolka iyo gudoomiyihii gobolka kulli waxaa lagu jiray shirka lagu jiray marka qadara meeshaas ka dhacday wax ilaahay qoray ahayd nimankan cadowga ahna mar walba dagar kasta oo ay isku dayayaan waxay rabaan inay si wax u geystaan oo isqarxiyaan marka weli ma xaqiijin karno inuu qarax meesha lagu diyaariyay iyo mid isqarxiyay uu yahayba dib ayaana rabaa inaan kasoo sheegno waxaan shacabka gobolka banaadir u baaqayaa inay isjiyaan waxa dhacan intahay wax qadara oo ilaahay qoray gudoomiyaha gobolkana waa uu nool yahay haddana maaragtay lala tacaalayo caafimaadkiisa gudoomiyaha dhaawiciisa ka waran marka gudoomiye tuulax mid culus baa mise hadda sida ay loo xaqiijiyeen dhakhaatiirtu wareegii koowaad weli waa fiican yahay ma fahanta qaliinuna hadda ku jira marka qaliinka markuu kasoo baxa kadib aan xaqiijin doonaa sida ay xaaladdu tahay dhowr gudoomiye degmaha qaraxa ku dhintay ayadana dib baan kasoo xaqiijin doonaa magacyada iyo inta dhaawaca ah iyo inta ay wax noqotay laakiin waxaan rabaa shacabkeena u sheego inay tahay waxaan wax qadara oo ilaahay qoray qofkii ilaahay u qorana uu dhimanayo inayna isdejiyaan nimankaan anaga mar walba oo nagama leexin doonaan maaragtay howlaha aan qaranka u hayno si walba iskugu dayaan inay dhibaato u geystaan